السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا إذي سلام يا قيادة شرفت له xilli kastay ku tahay wacan oo wanaagsan taxanaheena caafimaadka waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo hormoonka jacaylka love hormone ama waxa loo yaqaano oxytocin wax badan ka ogow hormoonka jacaylka ama oxytocin waa hormoon oo loo yaqaano neurotransmitter taasoo macnaheedu yahay in neerfayaasha kala duwan ee jirka uu kala gudbiyo fariimo. Neurotransmitter macnaheedu wuxuu kala gudbiyaa fariimaha jirka fariimo kala duwan ayuu kala gudbiyaa. Hormoonka loo yaqaano oxytocin waxa uu jirka ka qayb qaataa naasnuujinta iyo foosha. Sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa damqashada, naxariista, galmada iyo xiriirka jacaylka. Taasi ayaana u sabab ah in lagu magacaabo hormoonka jacaylka. Marmarka qaar hormoonkan waxaa lagu magacaabaa love hormone maxaa yeelay hormoonkan waxa uu siyaadaa xilliga habsiinta ama xabad isgelinta lamaanaha iyo xilliga galmada. Hormoonkan xitaa waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan ee dhanka daaweynta ah waxaana lagu daaweeyaa cudurrada kala ah niyad jabka, walwalka iyo cudurrada ku dhaca mindhicirada qaarkood. Hormoonkan waxaa lagu soo saaraa qaybta maskaxda ee loo yaqaano hypothalamus waxaana lagu keydiyaa qayb ka mid ah qanjirada loo yaqaano pituitary gland gaar ahaan qaybta loo yaqaano posterior pituitary. Marka ragga loo fiiriyo dumarka hormoonkan heerkiisa waxa uu u badan yahay dumarka. Hormoonkan waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa shaqada xubnaha taranka dumarka sida galmada, foosha, naasnuujinta. Inta foosha socoto hormoonkan waxa uu siyaadayaa waxaana uu sababaa in minka isku soo sameeyo aroorin. Dhanka kale farjiga waxa uu bilaabaa in sii ballaarto taasna waxaa sabab u ah hormoonkan. Hormoonkan waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa shaqada bulshada sida habdhaqanka qofka, xasuusta qofka iyo isgarashada bulshada. Fadlan haddaad muuqaalkan ka heshay like inoo saar, channelkana subscribe inoo saar. Videogaasna halkaas ayuu inoo egyahay love hormone ama hormoonka jacaylka. Waa mahadsantahay daawashada daawatay.